banaanbaxyo rabshado wata isla markaana ay dhigayeen dad u badan dhalinyaro ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho. dibadbaxa oo ka dhashay laba dhalinyaro ah oo mid ka mid ah majaajila ah oo ciidamada booliska Soomaaliya ku toogteen magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska Howlwadaag ayaa ku fiday qaybo badan oo ka mid ah caasimadda Soomaaliya Muqdisho. dhalinyarada banaanbaxa dhigay waxay dalbadeen in cadaaladda la mariyo dadka caadaystay ugaarsiga dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa ku shaqeysta mooto bajaaj. waxay sheegeen marar badan dhacdooyinkan inay soo laalaabteen dawladuna aysan waxba ka qaban iyagoo ku qaylinayay erayo ka dhana madaxda sare ee dalka. ciidamada dawladda ee la soo dhawo wadooyinka haddii aan nahay dadka dhalinyarada ee ku xamaasha bajaajta waxay noo geystaan dilal iyo dhibaatooyin iyo sidoo kale tacadiyo aan la meel deyn. waxaan ka codsaynaa dawladda federaalka Soomaaliya dadka waxgaradka ah inay naga qabtaan gudoomiyaha gobolka Banaadir maalin kasta waana la dilaa asna waa la dilay ma hadda laba kale la dilay markastana dilku aan hakad cid ka hadlaysa cid wax ka qabanaysa midna waxa noqda mid aan la iskala xisaabtamin oo shacabka iyo dadka bajaajlada lagu dhibaatay cid ka hadasha iyo cid wax ka tiraan midna ma jirto 12 saac lagu dilay wiil iyo artigiis iyo abiis oo bajaaj la saaran oo waxbana galabsanin oo istaag markii oo istaagay xabada afka lagu askarigiina oo markii oo istaag maadan afka xabada ka galiyo isla markii meesha ku ruux waayeen askarta waliba xabadaysa shacabka markii isku soo baxeen oo la xabray gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynaha gudoomiyaha maxamed xasan golaha baarlamaanka inay xukuumadda iska dhigaan maalintii farmaajo la dooranay waaga ayaa noo bariyay gobolka noogu bari doorashada sida uu qaraxsan maantana farmaajo wuxuu galay inuu xukumaado oo noo waraabiyo oo meel ba nagu jiro oo noo jirto oo wiilasheena laayo oo jidkana baahina disho oo rafaadna dilo oo maalba nala dilo dibadbaxa rabshadaha watay maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxa ku dhintay ilaa 5 qof oo ciidamada amnigu ay rasaas ku fureen kuwaas oo doonayay dadka dibadbaxa dhigaya inay kala ciriyaan. geesta kale gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa la hadlay dadka dibadbaxyada dhigay waxaana ay sheegeen inay xaaladda dejiyaan iyagoo ka dhawaajiyay cadaaladda in la mari doono askarigii ka dambeeyay dilka labada ruux oo mid ka mid ah bajaajla ahaa. marka hore waxay kaga mahad celinaynaa shucuurtiina iyo sida u soo bandhigaysaan sida aad noogu muujinaysaan falkii dhacay inuu yahay fal aan la aqbali karin isla markaana aan dhammaanteen ka wada gubanay labada marxuumna u tacsiyeyno falka ciddii geysatayna aan ka daba tagno taliyihii booliisku waa caddeeyey sarkaalkii meesha mas-uulka ahaana wuu xiray taliyaha wuxuu xiray waxay tahay in oo la dabagalo amarkaas la fuliyo si aan qof shacab annaga nooga dhiman waay waxa la rabo dhalinyaro magaalada magaaladiinni waay dalkan dalkiinni waay dalkan wuxuu ku hagaagi karaa annagoo midnimo iyo wadajir uga wada shaqayno sidii aan sharafkii karaamada iyo caasimaddan u soo wada ceshan lahayn. dilka maanta laba dhalinyaro loogu geystay magaalada Muqdisho ayaa xiisad badan abuuray waxaana ka dhashay dibadbaxyo waaweyn oo dad u badan dhalinyaro ay dhigeen kuwaas oo ay gubeen taayiro sidoo kalena wareeg dheer ay ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyadoo ugu dambeyn ay xaaladda ku soo baxeen gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidamada booliska kuwaas oo dibadbaxayaasha kadib markay la hadleen xaaladdu caadi ku soo laabatay.